ardayda dhacday guud ahaan 8,000 iyo jajab way. magaalada Muqdisho magaalada ugu badan ardada imtixaanka galay waaye. xamar wixii ka galay waa 25,000 iyo jajab. marka waa garan kartaa culayska magaalada xamar ay leedahay gobolka Banaadir. 7,000 qiyaastii wax ah oo u qalmo boqolkii 24 magaalada xamar marka la yiraahdo ayaa dhacday. sababta ma la garanayaa 7,000 oo arday hal magaalo in imtixaankii ay u fariisteen ay ku dhacaan saacadii wasiir ma la garanayaa sababta sababta waa la garanayaa sababta sahalka ah oo si sahlan loo sheegi karo waxa weeye inay imtixaankii markii la qiimeeyay ay gudbi waayeen maxaa keenay inay dhacaan oo yani aysan ku guuleysanin waa su'aal kale imtixaankan haddaan ra'yi kaa siiyo sida loo saxo halkii maado qof kasto imtixaankiisa waxaa saxaya 3 qofaa saxaayo qayb ka mida wuxuu gudbinayaa qof kale qaybta kale uu saxaya wuxuu gudbinayaa qofka kale inta hartuu saxaya markaasaa haddana qof ka sii kontroolaya inuu say wax u saxeen uu sax ahaa yaa saxayo oo ku kormeerayo markaasaa dhibcihii qof uu isku dardaraya qof kalena dhibcaha sida la iskugu daray ayuu ka saxaya inta la qabanayo qofka wax saxayo iyo qofka wax iskugu daraya iyo waxa ardayga magaciisa ma yaqaanaan iskool dhigta ma yaqaanaan gobol ka yimidna ma yaqaanaan qofkan ay saxaya marka waxaan isleenahay sidii ugu quruxda badneed ayaa loo saxay natiijada sanadkii hore kama duwana sanadkii horeba intaasoo kale percentagesku intaasay ahaayeen ma jirtaa arday imtixaankooda aanan la sixin oo ama si un loo iloobay ama ku talagal ay ahayd ama si un ay ku dhacday may taa ma dhici karto waxaana dhici karin marnaba waaye dariiqa la maro aad uu cad yahay wax qarsoonna ma aha oo qarsoodi lagu waxeeyo weliba sanadkan waxaan samaynay ardayda daday iska soo xuleen ayaa markhaati ka ahaa sida loo saxaayo iyo procedureka la maraayo maxaad isleedihiin haddaad tihiin madaxdii wasaaradda waxbarashada ardada muqdisho waxbarashadoodu way liidataa ama markii imtixaan loo fariisto taya ahaan way ka liitaan kuwa kale ee gobollada Soomaaliya cilado u gaar ah jirto gobolka Banaadir oo wasaaradduna aad ugu mashquulsan tahay in ciladahaas la saxo oo saameyn weyn ku leh waxbarashada gobolka oo ay ugu duwan yihiin meelaha kale horta koow waa caasimadii waaba ka garan kartaaba boqolkii 50 ardada imtixaanka gasho waxay ka yimaadaan iyo weliba wax ka badan magaalada xamar marka magaalada saa weyn oo saa u baaxad weyn waaye systemka waxbarashaduna oo aad iyo aad u kala baahsan yahay oo noocyo badan loo waxeeyo maalan haddaan miisaal ku siiyo waxaa aad u dilaacay iskoola private oo ganacsi ku jiro oo ardada boboodsiinayo waxaa arkaysaa ardaygaas waxba baran in la boboodsiinayo fanfoor la keenayo daabad ogtihiin inay jiraan iskuullo gaar loo leeyahay oo ardada fasalada ka bootiya maad la xisaabtantaan maxaad u dhowranaysaan arrintaas tallaabaan ka qaadnay waxaan samaynay tallaabadii ugu habbooneed oo ah in la register gareeyo ardadoo dhan oo systemka ku jiro from grade 1 to grade 11 marka arday dariiq ka soo gali kara ama boodi kara hadda kadib ma jiro taa waxay sixi doontaa in ardayga uu waqtigiisa soo qaato laakiin cilad jirtay oo ugu nimid oo la saxayo ay ahayd waa ciladaha aan meelaha kala qabin laakiin magaalada xamar dadka ka ganacsada waxbarashada xirfad ay la yimaadeen waxaa arkaysaa iskoolaadka qaarkood oo hadda aan albaabada u xirnay sanadkan oo fanfoor keliya leh marka waxaan dhacaayo aad arkaysidoo faraha badan oo xamar waa dhacin la leeyahay waa kuwa dariishada ka soo galayo ama sida xun systemka nala kula khasbay in muxuu ahaa imtixaanka ay galaan laakiin hadda kadib aan imaan doonin maxaa yeelay registration baaxad weyn aan samaynay